بسم الله. الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين. حقا وحنون Virtual Academy. حنون Virtual Academy waxaanu kusoo gudbinaa maadooyinka laga barto dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed oo lagaga shaqeeyo qeybaha calculationka iyaanu jawaabtooda xaqan kusoo gudbinaa. sidaad wada ogsoontiinba waxaanu wadnay barnaamij noo ahaa oo xanuun noo ahaa oo transportation model ayaan oon kasoo shaqeynay dhowr qaybood ilaa lix part 2 intaan kasoo bilaabin ilaa part 6 ayaan soo gudbinay oo ku saleysan qaacidooyinkii iyo sidii lagaga shaqeyn lahaa. marka waxaanu jeclaysanay inaan qeybtan aanu ku darno oo ah qeyb la yidhaahdo degeneracy in transportation problem oo qeyb exceptional case oo ah si gaara laga shaqeeyaa. markaa sidii laga shaqeynaya waxay ka dhigan tahay degeneracy problem. fadlan aanu ka fiirino exercisekan aanu meeshan aan kaga shaqeyn doono. xaggan waxaana la siiyey waxaana la yiri find the initial basic feasible solution by using the least cost cell method and then optimize the solution by using UV method for the following transportation problem. macnaha waxaana la yiri waxaad raadisaan total cost of transportation ka raadiya idinkoo isticmaalaya the least cost cell method. marka aan ka raadino kabacdi haddana optimize sameeya idinkoo isticmaalaya UV method. inkastoo aanu qayb kasoo sheegnay xaggan imika waxay ay laba qaybood baa xaggan laga shaqeeya. qaybta koobaad waa least cost cell method, qaybta labaadna waa UV method. saanu hore usoo shaqeynay aan kasoo shaqeynay waxaan kaga soo shaqeynay basic feasible solution, northwest corner method, least cost cell method iyo Vogel approximation. saddexdaas aan kaga soo shaqeynay. sidoo kale optimization waxa laga aan kaga soo shaqeynay UV method ama modified distribution method iyo stepping stone method. intaba waan kaga soo shaqeynay. marka su-aashan waxaa loo yiri degeneracy, bal aanu fiirino waxay ka dhigan tahay degeneracy. saanu aan horey aan su-aalahan oo kale aan kaga soo shaqeynay. marka koobaad waxaa la sameeyaa supply-ga iyo demand-ga ayaa la balance gareeyaa. supply-geena iyo demand-geena waa inaan balance ka dhignaa. marka sideeba balance loogu sameyn? waxaa lagu sameyn marka koobaad intana la isku dari, marka xigtana intana la isku dari, marka balance-gooda aad inuu noo yimaadaan fiiriyana. then bal supply-ga aan isku darno. supply-ga waxa weeyaan 35 lagu daray 40 lagu daray 20 lagu daray 30 waa imisa 125 weeyaan. xaggaas qaybtan imika isku daro imisa waa 125. marka waa sax. qaybta kale xigta haddana marka aan fiirino waa 20 lagu daray 20 kale oo lagu daray 40 lagu daray 10 lagu daray 35 sanoo timday 125. qaybtaasna 125 bay noo timday. marka way saxsan tahay ka dhigan tahay. imika hadday tan laftirkeedu haddayna isleekaan ay meeshan aan equal noqon lahayn, it's a special kind of transportation iyadoo noqon lahayd oo marka qaacidada laga shaqeynayo. qaacidadan ugu dambeeyo qaybtan ka xigta ayaan kusoo gudbin doonaa si laga shaqeeyo. imika waxay ka dhigan tahay least cost cell method waa laga shaqeyn karaa li'annahu xaggan waxaan timiday equal bay timiday. then what mean by least cost cell? least cost cell waxa weeyaan xaggan marka koobaad bal aan yara faahfaahino. waxaan la siiyey xaggan source-yaasheeni baan la siiyey as well as demand-gii baan la siiyey. source A waa markaan ka qaadno aan demand A geyno kharashka ku baxaya waa 10. source A waa markaan ka qaadno aan demand B geyno kharashka ku baxaya waa 2. at the same time gabigoodii markaasana meeshan lagu soo qeexay. haddana waxaa xaggan la siiyey source-yaasheenan supply ayay xaggan aan hoosana macnaha supply waa lasoo saaraya. destination-kana waxaan leeyihiin demand.
then supply-gan aan soo qaadinaa oo demand-gan aan u geeninaa saasay ka dhigan tahay marka. So xaggan marka least cost element laga shaqeynayo waxaa la doortaa ka ugu yar baa xagga laga doortaa. then ka ugu yar marka xaggan ka dooranayno ka ugu yar xaggan waxaan haysanaa lambar labadaas iyo xaggana lambar labadaas. marka seen u kala dooran labada lambar. first markaa su-aashani special problem aan uga soo qaatay ay tahay special case waa tan oo kale marka. iminka xaggan lababa meesha yaa kasoo baxaya marka labada midkeen qaadanaa waxaanu qaadanaynaa marka haddaan tan qaadin lahayn waxaanu soo qaadin lahayn xaggana hoos 10 baan ka haysanaa dhinacan 40 baan ka haysanaa marka labada midkii lasoo qaadanaya ka yar baan soo qaadanaa macnaha 10 baa loo allocate garaynaya. haddaan tan soo qaadin lahayn hoos waxaan ka haysanaa 20 xagga waxaan ka haysanaa 35 teeba marka xagga lasoo qaadanaya ta ugu yar waa tee waa 20kaas. marka labada midkee yaa loogu horreysiinaya waxaa loogu horreysiinaya mar walba allocationka ugu badan. xaggan allocationkiisa xaggan 10 buu noqon lahaa kan kalena 20 buu noqon lahaa marka kaan dooranayna waa kan waayo 20kaas ayuu ku allocate garaynaya ka ugu badan maadaama yahay. then kaasaan soo qaadan kani markaan soo qaadanay 20 xaggan maxay ka dhigan tahay 35kii baan kasoo qaadanay 20 oon u geynay 20kii xagga demandiga xagga 20kii nagu sii sugayay. that means column-kani muxuu noqonayaa fully satisfied bay noqdeen bay ka dhigan tahay. that means this satisfied buu noqonayaa kan kale satisfied weeyaan kan kale waa satisfied kan kalena waa satisfied kan kalena satisfied macnaha 20 marka 20 laga jaro xagga waxaa noo soo haraya waa eber. qaybta kale 35kii waxaan kasii qaadnay baa ahayd 20 waxaa xagga noo soo haraya 15 baa noo soo haraya. okay haddana seelyaashan aan fiirinayna seelyaashanka ugu yar waa kii labadaasa ugu yar wax kasii yar ama waxa isku mid ma jiro. then isagaan qaadanayna hoos maxaan ka haysanaa 10 baan ka haysanaa dhinacan maxaan ka haysanaa 40 baan ka haysanaa 10 baan soo qaadanayna 10 markaan soo qaadano column-kani fully satisfied buu noqonayaa kan satisfied buu noqonayaa kan satisfied buu noqonayaa kan satisfied buu noqonayaa macnaha waan qancinay kanna waan qancinay 10kii xaggan 40kii baan 10 ka soo qaadno u geeyno 10kii meeshii nagu sii sugayay then xaggan wax la sugayo oo noo hadhay ma jiro fully waan wada qancinay baa ka dhigan dadkii xaggaas. xaggan supply-gii noo yaalay 40 buu ahaa maxaan ka soo qaadnay 30 10 baan ka soo qaadnay maxaa noo soo haraya 30 baa noo soo haraya. then waxaa xigtaa intaan seelyaashan noo xigta ka ugu yar meeshan noo muuqday waa kii waa saddexdaan soo qaadanaa xaggan 40 baan ku haysanaa dhinacan 15 baan ku haysanaa. then ka ugu yar waa tii labadaas waa 15 markaan ku allocate garaynaynaa 15 markaan ku allocate garayno rowgani markaa muxuu noqonayaa fully satisfied buu noqonayaa kan waa satisfied kan durba satisfied baan soo sameynay kanna satisfied buu noqonayaa kan waan soo sameynay kan satisfied buu noqonayaa marka 15 laga sii qaado maxaa xagga nagu soo hariyaa waxba 15kii baan soo qaadnay 40kii markaan aan u geynay maxaa xaggan aan u geynin oo noo harayaa 25 baa noo soo haraya. okay intanaan noo soo hadhay ta ugu yar waa afartaas soo qaadanaynaa hoos waxaan ka haysanaa 35 dhinacan waxaan ka haysanaa 30 baan soo qaadanaynaa 30 markaan soo qaadano rowgan muxuu noqonayaa satisfied buu noqonayaa maadaama 30kii oo dhan soo wada qaadayna bay ka dhigan tahay. then kan satisfied buu noqonayaa kan waan soo sameynay kan satisfied buu noqonayaa kan waan soo sameynay kan satisfied buu noqonayaa 30kii marka 30 laga jaro maxaa xagga noo haraya waxba nooma hariyo. qaybta kale xigtaa waa qaybtan ay ahayd 35 waxaanu ka soo qaadnay 30 baan ka soo qaadnay 35kii baan 30 uga keenay maxaa xagga nooga soo haraya 5 baan ka soo haraysa. okay waxaa noo soo haray 60 noo soo haray 60ka ugu yar waa kii waa 8 aan soo qaadaynaa house 5 baan ka haysanay xaggan 30 baan ka haysanay 5 baan soo qaadnay 5 markaan soo qaadnay qaybtan column E-gani fully satisfied buu noqonayaa. then kan waa satisfied buu noqday kan already satisfied baan haysanay kan satisfied buu noqonayaa kan satisfied buu noqonayaa 5 marka laga jaro 5 maxaa xagga noo soo haraya eber baa noo soo haraya. then 35 marka 5 laga jaro waxaa noo soo haraya xagga 25 baa noo soo haraya. well afartaasaa noo soo haraya afarta noo soo haraya ta ugu yar waa 13kaas hoos waxaan ka haysanaa 25 dhinacana 25 baan ka haysanaa. then labadaataan doonin soo qaadaynaa then waxaan ku qoraynaa xagga 25 baan ugu qoraynaa 25 markaan ugu soo qorno haddaan aan column-kan aan satisfied aan sameyno
ka already waan soo sameynay kaan soo sameynay 14 kaas waa 65 buu noqonayaa isagana 65 buu noqonayaa 25 marka 25 laga soo haro xagga waxaan u soo harayaa eber qaybtan xigta kanna maadaama uu 65 noo noqonayo xaggan kan 65 buu noqonayaa isagii 65 buu noqday qaybtan 25 marka 25 laga jaro xaggan waxaan u soo harayaa waxba nooma soo harayo marka maxaa noo soo haray 15 kaas noo soo haray 15 kaas waxaan ka haysanaa 20 dhinacana 20 baan ka haysanaa then 20 baan ku soo qoraynaa kaas 65 buu noqonayaa kaas 65 buu noqonayaa la kanna 65 buu noqonayaa 20 marka 20 laga jaro xagga eber baan noo soo harayaa kan 65 buu noqonayaa kan 65 buu noqonayaa kan 65 buu noqonayaa kan 65 buu noqonayaa then 20 marka 20 laga jaro xagga maxaa noo soo harayaa eber buu noo soo noqonayaa saad marka xaggan aad u aragtaan total gabi supply-geeniina waan wada satisfy garaynay as well as demandigiina waan wada satisfy garaynay annakeena sanaan ku allocate garaynay saasaa marka ay su-aashii ay ku dhammaan lahayd bay ka dhigan tahay laakiin marka xaggan maxaan fiireynaa total costigii baan fiireynaa total costigeena marka xaggan waa imisa 2 lagu dhuftay 30 3 lagu dhuftay mid walba kii aan ku allocate garaynay baan ku dhufaynaa ka aan isku wada daraynaa markaan isku wada darno 2 yaa lagu dhufanaya 20 3 yaa lagu dhufanaya 15 2 lagu dhufanaya 10 4 yaa lagu dhufanaya 30 15 yaa lagu dhufanaya 20 13 yaa lagu dhufanaya 25 iyo 8 yaa lagu dhufanaya 5 maxay noo imanaysaa 890 bay noo imanaysaa right then su-aasha imika sana ayay ku dhammaan lahayd laakiin hal step mar walba ayaa la fiiriyay ayaa meeshii noo yaalay saan aan u fiirinaynay marka koowaad demandiga iyo supply-ga inaan balance sameyno aan mar walba u fiirinin jirnay iyaan haddana inaan u fiirino xaggan ay mudan tahay that means waxaan fiirinaynaa occupied cell mar walba waa inuu noqdaa m plus 1 minus 1 taas oo ah m waxa weeyaan our column-keeni weeyaan n-na waxa weeyaan our row-geeni weeyaan waa inay noqdaan occupied cell-kuna waxa weeyaan waa kan xaggan aan kusoo sheegnay waa inay isleekaadaan marka imisa xabaan leedna xaggan waxaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 occupied cell baan leenahay m maxaan niri column-keeni weeyaan column-keeni waa imisa 1 2 3 4 5 column baan leenahay row-geenuna waa imisa row-geenu waxa weeyaan 1 2 3 4 row iyo waxaan haysanaa iyo 5 column that means 7 waxay la mid tahay 5 lagu daray 4 laga naaqusay 1 that means waxay noqonaysaa 7 waxay leeg tahay 8 aqool maaha marka waxa loo yiri degeneracy waa tan iminka su-aashii xaggan khalad baa ka yimid waxaana markaa aan allocate garaynay sax maaha bay ka dhigan tahay marka su-aalihii ilaa maanta aan soo shaqaynaynay waxay sheegi jireen xaggan inay isleeyihiin laakiin su-aashani maaha way ka duwan tahay xaggan khalad baa ka yimid marka xaggan khalad ka yimid saan u shaqaynaynaa wayaan su-aashaas markaa si loo shaqayn lahaa habkeedii baan yaanu xaggan aan ka fiirinaynaa then aanu fiirino si loo shaqayn lahaa okay su-aashii waatan su-aashii saasana ahayd waanu ka soo shaqaynay oo waan ku allocate garaynay oo sanaan samaynay xaggana saasaan ugu soo allocate garaynay markaan xaggan ku soo allocate garaynay marka maxaan samaynaynaa weyn su-aashu liannahu waxaan u allocate garaynay 7 noo noqdeen waxaana laga rabay waa 8 xaggan waxaan ka helaa waxaan ka haysanaa waa 7 marka halkaas seen kusoo saaraynaa waxaan kusoo saaraynaa waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo epsilon minimum value of intaan waxaan raadinaynaa marka koowaad an allocated cell kana marka hore aan raadinaynaa kan 10 5 10 10 14 15 7 9 15 kuwan aanan u allocate garaynin iyaan ka ugu yar baan iyaan fiirinaynaa ka ugu yar waa kee waa 5 iyo 5taas weeyaan right labadaas marka waxaan ugu allocate garaynaynaa with the minimum epsilon la yiraahdo epsilon minimum valuegiisu uu yahay 0 hal yaan ugu allocate garaynaynaa oo yahay valuegiisu 0 seen ugu allocate keensan u kala dooranaynaa
waxaan ku dooraynaa waxaan sameynaa si aan hore usoo samayn jirnay loop baan sameynaynaa loopkaas oo ah markaan aan markii hore loop aan samayn jirnay matalan hadaan markaan loop kan u sameynay xaggan saas close baan samayn jirnay right loop markaan samayn jirnay close baan samayn jirnay laakiin mid aanan close inuu noqdo maaha waxa uu leeyahay shuruudo leeyahay shuruuda koobaad waxa weeyaan loopkan aan samaynayno inuu mid closed uu noqdo maaha matalan xaggan aan ka baxaynaa xaggan haddaan istaagno xaggaas ku dhammaaday xaggan aan ka baxaynaa hor baan u soconaynaa xaggaasaan soconaynaa hoos baan u soconaynaa xaggaasaan soconaynaa xaggaasaan soconaynaa xaggaasuu ku istaagay right markaa eg labada kaa iyo kaa midkaa dooni baad qaadan kartaa ee laakiin anugu kanaan qaadanaya shantaasaan qaadanaya shantaa markaan qaato yaan xaggan kor baan u kacayaa xaggaa baan kor kacayaa hoos baan dana u socayaa xaggan aan u kacayaa kor baan u kacayaa xaggaasay ugu dhammaatay that means markaa tani shuruudeennii way buuxisay bay ka dhigan tahay kuma soo noqonayo meesha oo close ma noqonayo waa just open meel buu ku dhammaanayaa that means markaa tani waan u allocate garayn karnaa bay ka dhigan tahay markaa tan maxaan sameynaa xagga waxaanu sameynaa we add a value which is epsilon oo minimum valuegiisu uu yahay 0 ayaan xaggaa ku daraynaa bay ka dhigan tahay xaggaa ma ku darnay maxaan ka dhignay 0 baan ka dhignay iminka maxay noo noqdeen haddana waan check garaynaynaa waxaan ku check garaynaynaa total waxaan balansigoodii ma fiirinaynaa xaggan maxaan nirnima ahayd 125 baan nirmaa 125 litir marka xaggan maxaa noogu soo biiray iidaasaa kusoo biirto marka 125 lagu daray e baan xaggan ka haysanaa 125 lagu daray e totalku xaggan waa sidaa xaggan kale markaan hoos ugu darno ilaa mid walba hoos baa xaggan totalkiisu waa xaggan saa qaybtan totalkiisu iidaas xaggan ay soo raacaysaa marka waxaa intaana marka la isku daro maxay noqonaysaa 125 iyo e totalkeeni marka xaggan balancigi marka transportationkeenu muxuu yahay waa balanced transportation shuruudii koowaad uu ka gudbay shuruudda labaadna maxay ahayd occupy cell waa inuu la mid noqdaa m plus 1 minus 1 oo m uu yahay column n uu yahay row occupy cell kunimka waa imisa 1 2 3 4 5 6 7 waa 8 iyadii marka lagu daro waa 8 m maxaa niray m waxa weeyaan waa columnkeena 1 2 3 4 5 baan haysanaa n waa maxay waa rowgeena waa 1 2 3 4 waxay noqonaysaa 8 waxay lamid tahay 5 lagu daro 4 waa 9 marka laga naaquso hal waa 8 waxay lamid tahay 8 saasaa marka ay su-aashii ay sax noogu noqotay bay ka dhigan tahay marka ilaa imika waxaanu sameynaynay waxaan waa balance garaynaynay su-aashii kamaanaan jawaabin su-aashiina waxaana la yidhi find the visible solution by using least cost cell method ba ahayd and optimize aan noo sii hadhi ba ahayd waa inaan optimize garaynaa si aan ku optimize garaynayna marka total costiga bal ka waran haddaan marka usii socono total costiga waa isla midkun waayo 5 lagu dhuftay yaan xagga maxaa noogu soo biirayaa 5 lagu dhuftay eber igaas muxuu noogu yeelaa epsilonkaas muxuu noogu taagan yahay annaka waa 0 mu noogu taagan yahay maadaama 0 noogu taagan yahay total costigan waa 890 kii aan hore u helnay bay noqonaysaa okay marka imika waxaan u gudbaynaa si aan u raadi lahayn uv seebaa loo raadiyaa marka koobaad waan saan hore usoo sheegaynay waan magacaabaynaa magacaabis baan siinaynaa marka intaasaan v1 v2 v3 iyo u1 u2 u3 baan yaranaynaa before that mar walba waa inaan iska fiirinaa baan idhi kan totalkiisa iyo tan totalkiisa labadan waa isku mid waa iskulaalki waa su-aasha waa iyadii un then waa magacaabaynaa u1 u2 u3 u4 v1 iyo v1 v2 v3 v4 v5 u1 u2 u3 u4 intaan ku magacaabinaa marka maxaa oranaa marka koobaad tan iyaan siinaa 0 baan siinaa tan iyaan siinaa 0 markaan siino tan markaan 0 siino waxay ka dhigan tahay tan marka qaacidana marka haddana isticmaalayna qaacidana waxay la mid tahay waxay leedahay ui plus vi mar walba waxay la mid tahay cost of occupied cell ui lagu daro vi waxay la mid tahay cost of
occupied baan la yidhi cost occupied waa kuwe waa kuwan cost of occupied cell ama waxaa la yidhaahdaa CIJ baa la yidhaahdaa CIJ or in other word it sounds to be CIJ. That means UI plus VI is equal to waxay la mid cost occupied cell or CIJ la mid tahay. Then U baan ka bilaabinaa oon oranaynaa U1 is equal to 0 maneri xaggan aan imaynaa U1 marka lagu daro V2 waxay la mid tahay 2 marka taa ma haysano U2daas U2da marka maxay noqonaysaa it's obvious taa marka lagu daro taa waxay la mid tahay taa then taas maxay la mid noqonaysaa V1 marka lagu daro shay waxay la mid tahay 2 eber marka lagu daro shay waxay la mid tahay 2 shaygaas marka muxuu noqonayaa it's 2 obvious. Okay taa markaan helo kabacdi waa procedure-ka loo isticmaalay waa aad buu fudud yahay mar walba waxaan isticmaalaynaa allocation-kaas ayaan kaabaan hagaya hoos baan soconaynaa kaasaan haddana tegaynaa kaa markaan xaggan tagno maxay ka dhigan tahay U3 marka lagu daro U2 waxay la mid tahay 5 bayna iyay la mid tahay iyay ka dhigan tahay laakiin xaggan V2 waxaan haysanaa 2 tan ma haysano tana markaa heli karnaa sideen ku heli karnaa shay marka lagu daro 2 waxay la mid tahay 5 marka shaygaas xaggaas wuxuu noqonayaa 3 buu noqonayaa right marka tanaan haddana iman karnaa oo waxaan raadin karnaa taa seebaan u raadina U3 marka lagu daro V1 waxay la mid tahay 15 marka V1 maxay la mid noqonaysaa 12 bay la mid tahay right okay iminka intaas saasaan ku gudubnay su-aashii qaacidadiisaan ku wadnay way naga dhammaatay marka haddana tanaan kusoo noqonaynaa markaan kusoo noqono xagganaan imanaynaa eber marka lagu daro shay iyaa la mid tahay 3 marka shaygaas muxuu xaggaa noo yahay wuxuu noo yahay waa 3 hoos baan soconaynaa kanaan imika raadinaynaa inaan taa helo tan marka lagu daro 3daas waxay la mid tahay 13 then U4 waxay noo la mid tahay waxay noo la mid tahay 10 baan xagga ka haysanaa ka dhigan tahay okay tan haddana sii heli karnaa inaan helo taa tanaan ku yaano tan isticmaalayna yaan helaynaa tan macnaha U4 marka lagu daro V5 waxay la mid tahay 8 then taas maxay la mid tahay -2 toban marka laga jaro 2 8 baan haysanaa ka dhigan tahay okay tanna waan haysanaa waxaa noo haray labadana noo haray tan xaggan waan ka helay tanaan usoo degaynaa tanaan raadinaynaa markaa U2 marka lagu daro V5 waxay la mid tahay 4 marka U2 maxaan helaynaa xaggaas 6 baan helaynaa 6 marka laga jaro -2 waxaan haysanaa xaggan 4 baan haysanaa ka dhigan tahay okay 6 baan haysanaa xagganna waxaan haysanaa 2 U2 marka lagu daro V4 waxay la mid tahay 2 xagganna maxay la mid tahay markaa -4 bay noqonaysaa right okay maadaama kan waan horey usoo shaqeynay waa sidii aan ugu soo shaqeynay bay noqonaysaa then haddana qaacido kale aan isticmaalayna qaacidadaas oo ah PIJ waxay la mid tahay U1 plus V1 oo laga naaqusay cost of an occupied cell macnaha U1 lagu daray V1 laga sii jaray cost of an occupied cell oo kan ah lambarkan helaynay maxaa la yidhahdaa PIJ-gaasa marka ayaan raadinaynaa marka PIJ mar walba waa inuu ka yaraadaa eber inuu solution setkeenu uu satisfy noqdo ama optimum uu noqdo marka waxaanu raadinaynaa oo dhan waa PIJ-gaas inuu noo yaraado uu nooga yaraado 0 okay then marka koobaad cost of allocated aan kuwan allocated akahayn aan fiirino waa kaas waa kaa 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 kaa iyo kaa weyaan waxaan raadinaynaa marka kan koobaad magaciisu waa maxay cell C11 macnaha source 1 iyo destination 1
cell the source 1 destination 1 keena source destination 1 source 1 marka maxaa lagu heli karaa waxa lagu heli karaa u1 plus v1 laga naaquso 10 okay cell 11 waxa laga helayaa v11 lagu daray u11 lagu daray u1 lagu daray v1 laga naaqusay 10 marka u1 waa eber baan haysanaa v1 na 12 baan haysanaa eber lagu taray 12 laga naaqusay 10 maxay noo imanaysaa 2 tan kasii shaqayno eber lagu daray 12 laga naaqusay 10 waxaan haysanaa underword eber lagu daray 12 laga naaqusay 10 tuuban waxaan ka haysanaa kaa tuuban ka haysanaa saasoo kale marka ayaan u shaqaynaa haddana tan kale labaadna tan kale xaggan xigtayno markaan aan shaqayno waxweeyaan see baa lagu helayaa tan waxaa lagu helayaa waa cell 1 4 bay noqonaysaa xaggan waa 1 tan kalena waa 4 1 2 3 4 cell 1 4 cell 1 4 waxa laga helayaa u1 lagu daray v4 u1 waa eber v4 na waa negative 4 then eber laga naaqusay negative 4 laga sii naaqusay 15 waxay noqonaysaa negative 19 waa sax taasina kasii socotan tan maxaa lagu helayaa u1 iyo cellka magaciisu waa maxay c1 5 bay noqonaysaa c1 5 waxaa lagu helayaa tan lagu daray negative 2 laga sii naaqusay 9 tan markaa maxay noqonaysaa eber laga naaqusay 2 eber laga naaqusay 2 maadaama xaggaas negative 2 weeyaan lagu daray 9 laga sii naaqusay 9 maxaan leedahay negative 11 baan haysanaa xaggaa okay sii soco kan kala tag kan maxaa laga helayaa waxaa cell 2 1 cell 2 1 waxaa laga helayaa 6 lagu daray 12 laga naaqusay 5 6 lagu daray 12 laga naaqusay 5 maxay noo timiday 13 waa positive 13 bay noo timiday still ilaa imka laba positive baan haysanaa kaa iyo kaa okay sii soco kan kala imo waxay magaciisu waxa weeyaan cell 2 macnaha kana waa 2 iyo kan kaloo 2 ah see lagu helayaa 6daas lagu daray 6daas laga naaqusay 10 waxaa lagu helayaa 6 lagu daray 2 6 lagu daray 2 laga naaqusay 10 waxaan kan ka haysanaa negative 2 baan kan ka haysanaa kan kale xiga waxa weeyaan cell 2 3 waxa lagu helayaa 6 laga naaqusay 3 6 lagu daray 3 laga naaqusay 15 6 lagu daray 3 laga naaqusay 13 waxaan haysanaa negative 6 way xagana noo timiday maxaa xiga kana haysanaa kana ayaa xiga kan saynu helaynaa 3 lagu daray 3 laga naaqusay 14 3 lagu daray 3 laga naaqusay 14 negative 8 waxaan helaynaa kan kale xigaan markaan raadino kan waxaan 3 laga naaqusay 3 maadaama kaas negative yahay laga naaqusay negative 4 lagu daray laga naaqusay 7 maxaan haysanaa xagaa maxaan ka helaynaa negative 8 waan helaynaa 3 minus 4 minus 7 8 then cell 3 cell 3 5 saynu ku helaynaa waxaan ku helaynaa 3 minus 2 plus 5 15 3 minus 2 minus 15 is negative 4 شيء ونوت متحقان okay كان cell 4 cell 1 4 cell 4 1 cell 4 1 4 1 cell 4 1 cell وهي ليا وحلو وهي ليا 10 plus 12 minus 20 10 plus 12 minus 20 is negative it's positive 2 بحقنا نوغي يمدي مركا مثلا كو لابو صدح بان يسنا
saddex baan haysanaa. Okay kii ugu kan yaan haddana ayaan fiirinaa. kan si lagu heliyaa 10 lagu daray 2 laga sii naaqusay 15. 10 lagu daray 2 laga sii naaqusay 15 waa just -3. right kii ugu dambeeyay aan marayaa. kan si wax laga heliyaa 10 laga naaqusay maadaama kaas negative yahay 4 lagu daray 25 waxaan haysanaa -19. right marka maxaanu niri Pij mar walba waa inuu ka yaraadaa 0 in order to be optimum. su-aashuna waxay ahayd and optimize by using UV method by ahayd. so inuu optimize noo noqdo waa inay Pij mar walba uu ka yaraadaa 0 waa inuu 0 ka yaraadaa. laakiin xaggan maxaan haysanaa waa to be optimal Pij have to be less than or equal to 0 yan. laakiin xaggan waxaan haysanaa saddex positive ka waaweyn baan haysanaa 0 ka weyna kaasoo ah taas koowaad oo taasa ta labaad oo tana iyo ta saddexaad oo tana. right marka maxaanu sameynaynaa waxaanu qaadanaynaa ka ugu weyn baan qaadanaynaa. then we select the largest Pij value that is kaasaan qaadanaynaa 13 kaasaan qaadanaynaa. kaas markaan qaadanay waxay ka dhigan tahay waxaanu cell 2 1 kaasa marka ayaan focuska saarinaa dib baan usii kala qaybinaynaa ka dhigan tahay. marka cellkan qaadanaynaa kaasaan qaadanaynaa 2 1. kaas waa ka typing error 2 3 maaha waa 2 1 kaasaan qaadanaynaa. then 2 1kii markaan qaadanay 2 1ku waa kee waa kaasaan qaadanaynaa xaggaasaan ayaan ka bilaabaynaa. maxaanu sameynaynaa waxaanu sameynaynaa sidaan hore u sameynaynayba waa straight one line baan ayaan draw garanaynaa. linekaas oo ah to the horizontal iyo vertical toward to linekaas aan draw garanayno toward occupied cellkaasaan sameynaa. xaggaasaan xaggan uma socon karno xaggaa uma socon karno xaggan aan soconaynaa saasaan u soconaynaa saasaan u soconaynaa saasaan u soconaynaa saasaan u soconaynaa saasaan mar walba waxaan dhaqaaqaynaa dhinaca occupied cell ku jiro. then xaggaa markaan joogno waan xiraynaa closed loop waa inuu noo noqdaa. markaa si epsilon markaan sameynayna maxay ahayd inuu close noo noqdo maaha cancel laakiin waa inuu close noo noqdaa. then xaggan intaan sameynay sanaan doosis kor baan soconaynaa xaggaasaan soconaynaa hoos baan soconaynaa xagganaan soconaynaa kor baan soconaynaa sidaasaan ku xidhaynaa. right marka aan saa ku xidhno kabacdi maxaan sameynaynaa kanaan dib baan u allocate garaynaynaa. see baan u allocate garaynaynaa waxaan u allocate garaynaynaa marka horan soo weyniisano xagga aan keensano meeshii aan ka bilowno waxaan odhanaynaa positive then negative positive negative positive negative positive negative saas ku dhamaanaya. macnaha xaggaas positive baa xaggaas ka bilowno soo ma xaggaas positive ahayd negative taas noqonaysaa positive negative positive negative positive negative. macnaha gees walba uu meesha ka laamo tarna ku sameeyo dhanba iyo positive ama negative markaa ayay noqonaysaa. then okay positive negative positive okay then sida markaa allocationkiisaan aan ugu sameynay bal haddana isagana siduu ahaa aan ku soo celino siduu ahaa xaggaas waxaan ka haysanaa 20 taa oo ka 20 kaasaan haysanaa xaggan iban xaggaan ka haysanaa iba xaggaan ka haysanaa maadaama ay eber tahay baan xagga waxbaan minimum xaggaa maxaan ka haysanaa taas waxaan ka haysanaa 20 qaybtaas 15 baan ka haysanaa 15 qaybta hoose waxaan ka haysanaa 25 waa 25 qaybtaas 5 baan ka haysanaa qaybtaana 30 baan ka haysanaa. marka xaggan waxaan sameynaynaa kuwa negative yaashan fiirinaynaa kuwa negative yaasha ka iyo kaasaan haysanaa ka ugu yar baan qaadanaynaa ka ugu yar ama kaas iyo kaas labadaa mid baa ugu yar marka labadaas waa 20 markay tahay 20 ayaan soo qaadanaa ka dhiganta marka 20 baan ugu wada jaraynaa gebi 20ka maxaan sameynaynaa marka kuwa negative yaasha waan ka naaqusaynaa 20 baan ka naaqusaynaa kuwa positive kana maxaan sameynaa 20 baan ugu beeraynaa. marka koobaad kan
labaatan marka laga jaro eber baan haysanaa labaatan marka laga jaro xagga eber baan haysanaa kan labaatan marka laga jaro 5 baan haysanaa xagga labaatan marka laga jaro 30 maxaan haysanaa 10 baan xagga ka haysanaa taas waa 10 xagga 10 baan ka haysanaa okay kuwan kalena waan u beeraynaa xagga 20 baan u beerinay xagga 20 plus e baan xagga haysanaa qaybtan 20 markaan u beerino maxay noqonaysaa 25 bay noqonaysaa qaybtan kale markaan aan 20 u beerino waxay noqonaysaa 45 bay noqonaysaa qaybtan maxaan haysanaa 10 baan haysanaa ka dhigan tahay okay then iteration cusub baan haysanaa table cusub baan haysanaa ka dhigan tahay kii cusbaa tablekii cusbaa baan ka usii gudbaynaa okay waa kan taas maxay ahayd waan khaldanay xaggaas 10kii xaggaas ka 10kaas haysanaa ka dhigan tahay okay well have a look imika waxaan cusub oo xagga noogu soo biiray waan wada sameynay the only sidaan su-aal ugu soo shaqeynay waxa ugu cusub wax yaro cusub waxa ku jira kan waxa weeyaan 20 plus daas macnaha waa 0 maadaamay tahay kuma jirto oo bay ka dhigan tahay waa inaan ku balance gareyno baa meeshan aan ka rabnay okay marka maxaan sameeynaa waxaan marka su-aal marka waxa la sameeyaa waxa la isku fiiriyaa inay balance yihiin kale macnaha totalkan iyo totalkan ay isku mid yihiin laana waxagan maadaama aan iyaal aan kusoo dardarna ay jirto 125 lagu daray weeyaan 125 lagu daray hal baan haysanaa hal epsilon qaybta kalena 125 lagu daray hal right then balance muxuu yahay transportation muxuu yahay it's a balanced transportation buu yahay maxaa markaa xigta maxaan sameynaynaa waxaan aanu sameynaynaa waa check baan sameynaynaa number of allocated cell must be equal to m plus n minus 1 waa inuu noqdaa maxaan ka haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 haddana haysanaa xaggan 7 buu noqday goordhow 8 bay soma 7 buu noqday qaybtana 1 2 3 4 column 4 row 1 2 3 4 5 iyo 5 column 7 waxay la mid tahay 4 lagu daray 5 laga naaqusay 1 saas means 7 waxay la mid tahay 8 which is false haddana khalad buu naga yimid which means degeneracy baa haddana naga noqday marka haddana maxaan sameynaa sidaan goordhow sameynoo kale aan occupied cell-yaashaan fiirinaynaa kaasaan maxaan siinaynaa marka maxaan ugu daraynaa minimum value of baan ugu daraynaa marka kaan epsilon aan ugu daraynaa waa inuu maxay noqdaa waa inuu closed loop waa inuu noqdo maaha waa inuu open loop waa inuu noqdaa marka aan occupied cellkiin waa kii waa ka marka ka ugu yar waa kii tuugaasaa ugu yar right then tuugan haddaan matalan aan ka bilowno ka dhaqaaqno xageenu dhaqaaqaynaa dhinacan haddaan u dhaqaaqno hoos aan u dhaqaaqno xaggaa u dhaqaaqno xaggaa u dhaqaaqno right kuma soo noqonayo haddaan xaggan u dhaqaaqno dhinacin dhaqaaqaynaa either vertical or horizontal un dhaqaaq u soconaa waxba meeshaas ku dhamaanaya xaggan marka meesha wadada ugu muhiimsan adoo in ka wadan dhinac u dhaqaaqnaba close loop ma noqonaya ka dhigan tahay kan marka xaggan we add a minimum value which is an epsilon baan ugu daraynaa then ugu daraynaa it should have not be a closed loop then xaggan aan check garaynaa bal kaas xaggan u fiirino hoos baan u soconnay xaggan aan u soconnay kor baan u soo noqonnay xaggan aan u soo noqonnay marka meel uu ku dhamaanaya ma jiro xaggaas ku joogsaday daas waan dooran karnaa bay ka dhigan tahay kaa marka maxaan siinaynaa baan arkaa xaggaa baan ayaan siinay markaan siinay imika waxbaa isbedelay maxaa isbedelay xaggan baa soo korodhay iyo xagga maxaan haysanaa 2 baan haysanaa sorry taas waa type error taas kuma jirto iyo daas xagga 2 baan haysanaa marka xaggan maxay noo noqonaysaa totalkeenu
125 plus 2e bay xagga noqonaysaa qaybtana waa inay saa noqotaa qaybtana markaa saa la isugu daro xagga 35 plus e baan xagga haysanaa xaggan waa 20 plus e baan haysanaa xaggana true bay noqonaysaa markaa e xaggana waa timid waa kaa xaggan 2e baan haysanaa waxaan kalena taaba nagu soo biirinay taa iyo taa labada e iyo xaggana labada e that means still waa transportation waa balanced transportation and allocation kenina sidaasuu noogu soo buuxsamay oo 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo 8 bay noqotay way ka dhigan tahay macnaha 8 waxay la mid tahay 8 okay marka haddana maxaan usii gudbaynaa uv baan haddana usii gudbaynaa uv-gani marka maxaan sameynaynaa first waxaan sameynaynaa waa magacaabeynaa kuwaas magacaabeynaa v1 v2 v3 v4 v5 u1 u2 u3 u4 saasaan u yeelanaynaa xageen ka bilaabeynaa waxaan ka bilaabeynaa qaacido waan isticmaalaynaa qaacidadeenaas oo ui plus vi mar walba waxay lamid tahay cost of occupied cell bay lamid tahay macnaha ui plus v2 maxay lamid tahay 2daasay lamid tahay marka koowaad u1 taas 0 baan siinaa 0 markaan siino v2daas maxay noqonaysaa xagga 2 bay noqonaysaa hoos u soco xaggaan maxay haysanaa 5 v3daas maxay noqonaysaa 3 why 3 plus 2 waxay lamid tahay 5 okay so saa inaga istaagtay xaggan aan usii gudbaynaa tani waa 0 v3 maxay noqotay xaggaas 3 bay noo noqonaysaa hoos waan soconayna xaggaas waa 13 u4 taas maxay noo imanaysaa 10 bay noo imanaysaa because 10 plus 3 waxay noo imanaysaa waa 13 right okay xaggan aan usii gudbaynaa intaan raadino xaggaas maxay 8 10 minus 2 waxaas ayna noqonaysaa 10 minus 2 waxay la mid tahay 8 right xaggan usii gudbaynaa 4 tan ma imanaysaa 2 bay noqonaysaa 6 minus 6 minus 2 gives us 4 right tan usii gudbaynaa xaggaas 6 baan haysanaa xaggana waa 2 xaggaas imanaysa markaa negative 4 or xagga tan kusii shaqeeyay right tan haddaan 5 baan ka haysanaa 5 xaggaas 1 bay noo imanaysaa ka dhigan tahay xaggana maxay imanaysaa markaa negative 4 okay usii gudba qaybta xigta haddana waxaan isticmaalaynaa qaacidadii kale ahayd PIJ-geenu waa inuu maxay noqdo baan nidhi PIJ-geenu mar walba waa inuu less than or equal to 0 u noqdaa kaas oo ah unoccupied cellka that means ui plus vi minus cost of unoccupied cell is always PIJ baan nidhi sooma okay so unoccupied cellkeenu waa kaa koobaad ka labaadna waa kaas ka iyo kawyan sooma then kan marka koobaad aan isticmaalina waxaan kan magaciisu ahayn cell 11 maxaa lagu helayaa 0 plus 1 minus 10 maxay noo imanaysaa xaggaas 0 minus 1 minus 10 minus 11 negative 11 right kana xiga kan maxaan ku helaynaa 0 minus 4 minus 50 minus 90 ba xaggaan imanaysaa 0 minus 4 minus 50 waxay minus 50 okay kan xiga muxuu noqonayaa 0 minus 2 minus 9 minus 11 baa haddana kana imanaya kan minus 11 0 minus 2 minus 2 minus 11 kana haddana imanayna kan waxaan ka leeyahay 6 plus 2 ilaa imika minus kuwaas waxaan idhmaa because of negative 2 iyo negative 4 bay ahayn negative 4 iyo negative 2 bay ahayn kan waxaan ku helaynaa 6 plus 2 8 minus 2 negative 2 just negative 2 kan kalena waxa weeyaan 6 plus 3 minus 50 which is 9 minus 50 is minus 6 okay kana ku xiga 3 plus 1 minus 15 4 plus 4 minus 50 is negative 40 is negative 3 minus 1 minus 15 12 okay right kana wuxuu noqonayaa 3 plus 3 minus 14 3 plus 3 minus 14 is negative 8
right kan kalena muxuu noqonayaa 3 minus 40 minus 7 3 minus 4 minus 7 minus 8 kan kala xiga 3 minus 2 minus 15 3 minus 2 minus 15 minus 14 kan xiga 10 plus 1 minus 20 10 minus 1 10 minus 1 minus 20 minus 11 then kan wuxuu noqonayaa 10 plus 2 minus 15 10 plus 2 minus 15 is 3 kan wuxuu noqonayaa 10 minus 4 minus 15 10 minus 4 minus 15 okay so to be optimum san hore u niri maxaa niri ahayd all pij value have to be less than or equal to 0 then gebi marka xaggan waxaan ku aragnaa oo dhan waa negative value that means the solution is optimum bay ka dhigan tahay solutionkeenu marka xaggan waan gaadhnay bay ka dhigan tahay sida markaa sidaan aan ku qaybinay baa sax ku ah bay ka dhigan tahay marka maxaan raadinaynaa waxaan raadinaynaa total costiga markaan raadinaynaa then total costiga saan ku raadinaynaa total costiga waxaan ku raadinaynaa tan koobaad haddaan ka bilaabno 2 times daas waa maxay waa 0 so only saan ku raadinaynay taanba yaa tan kalena 5 times xaggaas maxay noqonaysaa 20 plus 0 oo ah 5 times 20 kala tawayaan xaggaas 5 times 20 iyo 2 times 20 marka totalkiin wuxuu imanayaa 660 buu yimid ka dhigan tahay saas insha allah yaan ku gabagabeynay xaggan aan ka daawin aad ka naga dhehaysan waxay ahaayeen Hanuun Virtual Academy buu ahaa waxaan aniga waxa soo diyaariyay anigoo Abaadir Daahira fadlan wax tusaale oo ama su'aalaad la qabtan barnaamijka haday jiro noogu soo inbox gareeya adreeskeenu waxaad ka xaggan ayaad ka barkoolkan aad ka qaadan kartaan oo total Hanuun Virtual Academy YouTube kan ayaad ka qaadan doontaan sidoo kale Facebook kan waad nageli kartaan Instagram ka iyo YouTube ka iyo Twitter ka iyo LinkedIn intaba waan ku jirnaa sida iyo maca salaamo wa assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.